safaaradahan saaki waxaan aadnay xarunta maaragtay lagu hayo dadka tahriibayaasha lagu hayo dowladda Liibiya leedahay aan arrinta wax xaqiijin halkii baan tagnay madaxdii meesha ayaan weydiinay wixii cusub ee kusoo kordhay marka waxay noo sheegeen inay maaragtay jiraan dad badda lagu soo qabtay habeen hore oo badda dhexdeeda laga soo qabtay oo Soomaali ah iyagoo markaa dejintooda iyo tirakoobidooda iyo wararkooda waxaas iyadoo la hayo ayaan markaa meeshii ku aragnay qaarkood waan gartay marka tiradoodu imise ahayd tiradoodu waxay noogu sheegeen inay ahaayeen ilaa 109 oo hal doon ah oo Soomaali kaligood ah intan imika laga soo baxay qaboobihii ee dhulku soo diiray waa xilliyada la sheegay in tahriibku ay badato oo dad badan ay badda galaan ma markii ugu horeysay ba tan iyo sanadkan intii la soo galay mise waa marar badan sidan oo kale ay dhacday muddo hadda laga joogo maaragtay maalmihii lasoo dhaafay ilaa bishii hore iyo dhaqdhaqaaqii way iska jireen oo dadku badanaa waxay soo beegsadaan iyagoo dabcan dee la hogaaminayo ay hogaaminayaan dadka hawsha ku shaqada leh dad baa la sheegayay oo marar fara badan la qabtay iyo kuwa badbaaday iyo kuwa gudbay oo xagga Yurub iyo tagay wararka ceenkaas waa ayna soo gaarayeen laakiin si sugan si tafkiran oo waadixa oo aan sheegi karin uma helin laakiin dhaqdhaqaaqyadu mar walba way iska jiraan dadkan badda ayay ilaaliyaan marka baddaas ayaa la ilaalinayaa markaasna fursad markay helaan bay isku shubayaan badda ma garan dadkan imika maxay noqonaysaa taladoodu ma dib baa wadankii Soomaaliya loogu celinayaa mise mar kale ay fursad raadinayaan ay ku baxsadaan oo markaa badda mar kale ku tahriibaan waayadii hore dadka marka la soo qabto oo xarumaha la keeno marar badan dawladdu way sahli jirtay oo way iska sii dayn jireen oo inta loo dadaalo oo loo ordo oo iska sii daayo la yiraahdo marka marar fara badan waxa u suurageli jirtay inay dib haddana mar kale badda u galaan laakiin hadda waad ogtiin oo dhibaato fara badan baa Liibiya ka jirto oo cabsi fara badan bay ka qabaan dadkan iska socdo tahriibayaasha waxyaabaha ka imaan kara iyo ururada kale ay ku biiri karaan amaba ay ku jiraan cabsi fara badan noocaas ayaa jirta marka saa darteed wixii lasoo qabto xarumaha dawladda ayaa lagu hayaa marka safaaradda iyo hay'adaha qaramada midoobay iyo ayaa meesha ugu taga oo ka warqaba safaaraddu marka waxay isku mashquulisaa inay ogaato xaaladooda ogaato kadibna la diiwaangeliyo marka la diiwaangeliyana intii diyaar u ah inay dalka dib ugu noqdaan oo dib loogu celiyana marka hawshooda la galo dalka dib loogu celiyo inta kalena marka waxay noqonayaan kuwa meesha lagu sii hayo oo meeshooda looga warqabo ayay noqonayaan laakiin aad bay u adag tahay in maaragtay suuqa haddana iska aadaan maxaa yeelay waxaa la ogyahay haddii suuqa ay kusii daayaan inay haddana mar kale un isku dayayaan inay dib baddi u galaan dadkan miyaad la kulantay adigu la soo celiyey lagu hayo imika xaruntan qaybaan la kulay qaybo oo waxaa jiro oo maaragtay wixii xanuunsada markaa cisbitaalka qayb waxaa jiro oo markaa dawooyin lagu daweeyo oo xaaladoodii lagu fiiriyo marka waxaan ku horumarnay qaybta maxaan ku yidhahdaa dadka lagu daweeyo oo dhowr dumara iyo rag ay ku jireen tafaasiil kuwa ayaana siiyey colweynaha kale marka xilli waxaan ku beeganay oo raashin iyo loo qaybinayo beri ayaan ku noqon doonaa laakiin warka aan ka hayna waxa ayna siiyeen kuwana waxay ahayd inay ka koobnaayeen 39 dumar ah iyo 70 ragga inay ahaayeen marka qaarkood oo xanuunsanaa oo xaggii badda iyo kusoo dawaqay oo meesha lagu daweynayay ayaan daweyntoodii waxooda gacan ka geysanay oo qaarkood xataa dibadda dawo uga raadinay waan gartay marka intee leeg bay badda ku jireen halkayse gaadheen ma Liibiya miyay ka baxeen biyaheeda waxay noo sheegeen xeebaha Liibiya ay ka baxeen meel la yiraahdo Zawara meel la yiraahdo xuduudda Tunis xigta inay ka baxeen bay noo sheegeen waxay noo sheegeen markay 12 saacadood ay badda kusii jireen in markaa halkaa lagu soo qabto weliba warar kale noogu dareen waxay yidhaahdeen dooni kale inay jirtay oo laakiin Eritrean ay saarnaayeen inay degatay oo qaarkood tiro kooban laga soo badbaadiyey bay noo sheegeen laakiin taas Eritrean kula socda inay degatay tafaasiil badan bay lagama hayo oo annaga waxaan culayska isugu geynin un qoladan Soomaalida iyo xaaladooda ma garan ma laga warhayaa dadka tahriibta ku yimaada dalka Liibiya ee haddana kasii gudbaya tiradooda iyo magacyadooda iyo meel hadhowto markii wax dhacaan laga baadi dooni karaa ma jirtaa waagii dawladdii hore ay Liibiya ka jirtay oo dabcan saad ogtiinba dawladda dalka oo dhan bay gacanta ku haysay gacan bira bay ku haysay marka mar walba waxaa fududaanaysay wixii la qabto in wasaaradda arrimaha gudaha loo soo gudbiyo arrimaha dibadda wixii ajnabiga loo soo gudbiyo marka anagoo safaaradda iska fadhino ayaa liis noo imaanayay oo sheegayay markaas tira intaa la eg xabsi iblaaya lagu hayaa tira intaa la eg xabsi iblaaya lagu hayaa markaasay noo fududaan jirtay inaan meelahood uga tagno
laakiin hadda waxaad ogtahay dowladda Liibiya yani dalka oo dhan wada xukumin oo dhul kooban ay xukunto dhulweynaha Liibiya waa dhul aan deganayn oo markaa nimanka madaxyaasha oo dad iska maamushaan dadkan marka soo galidooda iyo tiradooda iyo dhaqdhaqaaqooda iyo amuurahaas oo dhan inta badan waa arrin aan laga warqabin oo dowladda martida loo yahayna aanay ka warqabi karin safaaradana dee kaba sii daran oo safaaradu meel aanay dowladdu gaarin marka ma gaarto marka tiradooda lama ogaan karo dhaqdhaqaaqoodana aad bay u adag tahay in la ogaado marka sidaasaa tiro saxa aan looga sheegi karin marka xaaladaha kooban oo marka lasoo qabto iyo marka meel lagu helo iyo marka badda laga soo badbaadiyey iyo marka intaa laga reebo